fadhiga 22aad ee kalfadhiga 41aad golaha wakiilada dawladda Puntland ayaa looga dooday dhamaystirka iyo ansixinta xubnaha maxkamadda dastuuriga ee Puntland oo muhiim u ah hirgelinta hanaanka xisbiyada badan ee Puntland. fadhiga waxaa shir gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo ay weheliyaan gudoomiye ku-xigeenka koowaad Cabdicasiis Cabdullaahi Cismaan iyo ku-xigeenka labaad Ismaaciil Maxamed Warsame. xubnaha golaha wakiilada ayaa dood sharci ah ka yeeshay dhamaystirka iyo ansixinta xubnaha maxkamadda dastuuriga ah. 38 xildhibaan ayaana u codeeyay ajandaha kalfadhiga 46aad qodobka ugu dambeeyay in laga dhigo dhamaystirka iyo ansixinta xubnaha maxkamadda dastuuriga ah sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirashiid Yuusuf Jibriil. fadhiga waxaa fadhiya 8 waa diimo eekaansan jirto sidaas ayaa qodobkaas uu noogu galay xagga ugu dambaysa dhismaha maxkamadda dastuuriga waxay awood u leedahay xalinta khilaafaadka ku salaysan dastuurka ee u dhaxeeya hay'adaha dawladda taas oo muhiimad gaar ah u leh hirgelinta hanaanka xisbiyada ee Puntland ay haatan u tallaabsatay. waxaana ay noqonaysaa markii ugu horeysay 22 sano kadib xildhibaanada dawladda Puntland ay dood ka yeeshaan dhamaystirka maxkamadda dastuuriga ee Puntland. Jaamac Cabdiraxmaan Axmed, Puntland TV, Garowe.